intaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka ani waxaan ku tilmaama aan garanayn damiirkoodana aan garanayn bini'aadnimadoodana aan garanayn markasta social media ba hadda wuxuu noqday afkaar dadka wax la isugu gudbiyo waxaan aniga u soo joognay geeri 4 sano iyo barkii ani aan joogay mas'uul baan ahay Soomaaliyeed oo loo soo doortay special gabadhii lagu toogtay tii igu qaracan badnayd bay ahayd lagu toogtay xalana dhexdiisa laakiin reerkoodii meedkii bay qaateen waa aasteen gabar waxa ku xigtay iyadoo jaamacad joogto oo nabad sugida oo garaado leh lagu dhex toogtay galaas dhexdiis reerkii waa qaateen waa aasteen gabar waxa jirta hotel laga soo tuuray oo aan la isweydiin aan ognahay reerkoodii oo ka daba qaylinaya laakiin way aasteen qofku doono ha noqdo ama xil dawlad ha hayo ama xil kala ha haye dalku waa u furan yahay inuu yimaado dalkiisa u yimaado deegaankiisa u yimaado wax kasta oo awoodana uga qayb qaato runtii arrinkaas kaysi ma ahan anagu aad baan uga xunnahay waana la iskala xisaabtami doonaa insha allahu tacaala arrinka labaad gobolka bari amnigiisa iyo nabadiisa iyo xasilidiisa waa wax muqadas oo inoo wada saaran kaysi ma ahaan iyo ka shakhsi ahaan qof kasta waa saaran yahay hawshaas anagu waxaan leenahay marka hore gudoomiyaha ku xigeenka ahna ku simaa madaxweynaha waxaan leenahay waa ka raali gelinayna haddaanu nahay dhaqankii waxaan leenahay arrinkaas raali gelin baanu ka bixinaynaa waxaan malaynaynaa dawladda federaalka iyo dawladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqayn iyo haddayba cusub yihiin inay ma filayn in dhib ay jidho annagu marka waxaanu garan karno maaha waxaan isleenahay hawshaasi waa arrin khaldan wadankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wada ummadda dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo saasaan annagu soo jeedinaynaa arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada waxaan leenahay wixii dhibay ku gaadhay anagu ma garan karo dhibto intay la eg tahay wixii wax ku noqday ilaahay weynaa hoob uga dhayo waxaan leenahay mas'uuliyiinta labada daraf oo labada ciidan oo isku dhacay inay xakameeyaan amniga iyo nabadgelyadana ay gacanta ku qabtaan ma garan karno ilaa iyo hadda xaaladaas iyo waxa keenay waxaan leenahay waa in baaris lagu sameeyaa